Waxaa saacadihii ugu dambeysay baraha bulshada ee barta social media qabsaday gabadhan oo lagu magacaabo Saara Maxamed oo dalkaasi Masar ka soo jeedo oo jacayl aad u weyn ay u qaaday wiil Mustaf lagu magacaabo oo dalkaasi Masar ay iskala soo jeedaan. Gabadhan Saara Maxamed oo lagu magacaabo oo gabar Islaam oo muslimad ah ayaa jacaylkeeda dartiisa xabado ay iskugu dhigtay ay aragii u beeshay jacaylkeeda Mustaf oo ka dhaqaaqay. Si aan kula wadaago fadlan daawada nagu soo biir oo asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanay gambaleelkan u furanay muuqaalkana like tala dhacay wixii fikir aad ka qabtidna qaybta commentiga noola wadaag. Saara Maxamed oo qiso aad u xanuun badan oo ku dhacday wiil Mustaf la dhahayo ee ay jecleed dartiisa ay xabada iskugu dhigtay ay araga la beeshay. Mustaf oo markuu ogaaday Saara in ay araga beeshay ama aragtidii zaa'id ay u beeshay la daaweyn karin arageeda ay amoolo noqotay markuu ogaaday jacaylkiina uu meesha ugu baxay iyo guurka isguursan rabeena meesha ugu baxay. gabar araga beeshayna ma rabo in uu dhahay ay gabar fiican oo caafimaad qabto oo arageedan uu u fiican yahay oo indho leh oo aanan camoole ahayn ayaa heli karaa. Saara Maxamed oo qalbi jab aad u weyn ka qaaday aragii ee beeshayna hadda familkeeda ay ku weerinayaan. Saara Maxamed oo hadda awowgeeda iyo walaalkeed iyo hooyadeeda sida aad sawirka ka arkaysid daawade familkeeda ay niyadda u dhisayaan maadaama laba dhibaato ay soo gaartay. arageeda ay jacaylkeeda dartiisa ay u waasay jacaylkii ay arageeda dartiisa ay u waasay islaheed jacaylka uu ku jecel yahay intaas ka badan ama aragtida awaasayna wuu kugu qaadan doonaa waxba uma arki doono ama culays kuma noqon doonto. laakiin taasi oo isbedeshay Mustaf oo jacaylka dhankiisa uu Saara u qabay jacayl intaasi aanan gaarsiisanayn ay ahayd oo markay aragtidiiba beeshay in uu meel cidlo ugu dhaqaaqay cidladana hadda uuba ugu tagay uubana ku dhahay qof aragtida beeshay ama gabar camoolo ah gabar fiican oo lixdeeda lixaad kaamil u yahay oo aragtideeda ama indheeda u fiican yahay ayaaba heli karaa. gabar camoolo ah inteeba ayaan geenayaa. Saara Maxamed oo qalbi jabkaasi aad u weyn u soo gaaray maadaama ayadii Mustaf oo isla socdaan tuuga ay wadada u gashay xabadihii Mustaf ku dhici rabay. Saara Maxamed jacayl ay Mustaf u qabto ay iskugu dhigtay ay arageedan sidaasi ku waasay. baraha bulshada ay barta Facebook iyo dadka Soomaaliyeed oo idil ayaa qisadaasi aadka ugu xanuunka badan ee Saara Maxamed ku dhacday ay ka hadlayeen maadaama Saara hadda ay qalbi jab aad u weyn ay soo gaartay guurkii Mustaf oo ayada iyo guurkii Mustaf ka dhaxeeyay oo mar dhow is aroos rabeen. Mustaf maadaama araga beeshayna guurkii uu ka baxay oo qalbiga ka jabiyay oo sidaasba uga tagay. qisadaasi xanuunka badan daawade wixii fikir aad ka qabtidna qaybta faalada noogu reeb. sidaasi ayaan iga tagaynaa. mac salaama.